sababta oo ciishoona waxay tahay asxaabe inagoo si qalad waxa u fahanteen oo meel walba anoo raali ah ka ahayn sabirkeyga soo saartay dhehaysiin adna waa qof xun adnana waxyaalaha si sameysay aniga waxa dhibka amiira haasto aniga ma aha fahma Soomaaliyeed dhibka amiira haasto waxa ay ka cabanaysaa waa maxaa lahaa ninkeeda mush ma aha adna ma idin dhihin adna waxaas igu sameysay adna saas iyeesh ma idin dhihin amiira waxa xumeeyay waa husbandkii hore qabay ma fahantiin ninkii qabay xumeeyay amiira aniga ma aha. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميعي واسماعيل حسن عبد يوتيوب كداون إنسان واسماعيل تام تي في فضلا ضادنا وعسو تحكي عشان يوتيوب كنا سبسكرايب نصارت دهورنا جوجتنا هذا كعمد علينا الجوجا كوسد والمقال عصب. رؤانتي وحاول مقال هدي سوق جاري أصحاب إلى سوق ذاين أي صدرين المقال كسنا وح كلام ما نحاول ولا شيء أدنى يو أمير قرح أي وحليه هو وإسخلافين وإزدجالين marka dhacdadii iyo waxyaabahaas waxyaabihii ka dambeeyay inay isku dhacaan iyo isku diray maxaa waaye farqi hadda soo kala dhaxgal inay kala guuraan waxyaabahaas oo dhan waxa ka sheekeynaysa walaasheen adna sidoo kale waxay leedahay walaasheena aniga amiir qurux waxa waaye waan arki jirnay 2019kii aan wax la duuduubayo 2020kii xataa arki jirnay wax la duubo laakiin maalmihii ugu dambeeyay xogaa waxa ma malaysaa inay kala fogaadeen xogaa qof meel u degay marka asbaabigii ka dambeeyay walaasheen adna inay soo hadasho runta ay cadeyso sidoo kale amiir quruxna waxay dhahday aniga waxa waaye maal xumeeysan waaye kida waxan ba sheegtay walaasheen in ilaahay u dooro marka waxa rabaa muuqaalkan lila soo wadaag inaan ka wada bixino action aan ka fal celino sidoo kale aan ku raaci darsano marka sida caadana like waa codsi subscribe waa dhiirgelin wixii afkar xagoosna wareeg ku soo dhawaad muuqaalkan faahfaahsan halkan muuqaalan ku haya muuqaalkan waxa waa muuqaal oo aad u dheer laakiin waxa waa aniga inta muhiimada aan ka daawan doona inta muhiimada aan ka wada bixinayna reaction waxa la horta ilkii carab ayaa isku dhaw isgaaran runtii labadan gabdhood waa laba gabdhood walaalo ah waa laba gabdhood saaxiib ah waa laba gabdhood oo soo wada shaqeeyay waxa waa in wax walba bilaabay leeyihiin dhamaadna way leeyihiin marka wuxuu ku bilaabay lama dhaho wuxuu ku dhamaadan lama dhaho adduunka sidaas ka ah laba asxaab waxa arkaysaa oo dhowr mar isla soo shaqeeyay hadana kala tagtay laba asxaab waxa arkaysaa oo wiligood aan kala tageenin marka adduunkan wax walba arkay Soomaalina waxay dhahday cimrigaaga waraagahe geel dhalaayo ku tusaa marka waxaan muuqaalkaas in isla fiirsano inta ugu horeyso baa daawan doona wixii afkaan xagga dambe ka dhiibanayna wixii taliyo tusaalan waan siinayna walaasheena adna sidoo kale amiir quruxna waxaan leenahay muuqaalada ay soo gaareen TikTok aan ku arkay luuqana lagu soo diray idan waxaa leenahay adig iyo bibigaaga ilaahay adduunka adinku dhooro wiilkaasna waxaa leenahay ilaahay ka dhigay ninkii diintiisa iyo dadkiisa anfaco marka waxaa leenahay marka muuqaalka aan u gudagalno yaa waran ku daalinay muuqaalka u gudagalno noo bilaab marka muuqaalkeena sababta oo ciishoona waxay tahay asxaabe inagoo si qalad waxa u fahanteen oo meel walba anoo raali ah ka ahayn sabirkeyga soo saartay dhehaysiin adna waa qof xun adnana waxyaalaha si sameysay aniga waxa dhibka amiira haasto aniga ma aha fahma Soomaaliyeed dhibka amiira haasto waxa ay ka cabanaysaa waa maxaa lahaa ninkeeda mush ma aha adna ma idin dhihin adna waxaas igu sameysay adna saas iyeesh ma idin dhihin amiira waxa xumeeyay waa husbandkii hore qabay ma fahantiin ninkii qabay xumeeyay amiira aniga ma horta wada jeedno waxa waaye muuqaalkeena wuxuu socdaa 38 sakin walaasheen adna waa qof oo iska maxay qof walba u yaqaana waa qof iska qalbi furan ma sha Allah iska dad jecel sidoo kale waxa waa Soomaali ayaan ka dhalanay uma qabsanayna macnaha ma dhaheena maxaa lagu eedi waayay ma dhaheeno Soomaalida ka dhalatid faa'iido daraba ka filo xalay aan ku arkay TikTok aad u qabsaday iyada sawirada la saarayo waxa leeyahay adna iyo amiiraas ku dhacay saan waay qabac marka saakay muuqaalkan ay soo gaaray waxa la bal Ismaaciil oo bal wixii fikir ah oo ku soo darso maalmahan asxaabtiin aadi macnaha nala shaqeynaysa waxa ay kaga mahad celinayna mar saddexaad walaasheen waxa leena adno Soomaaliya ka dhalatay waxba u qabanin Soomaalida ka dhalatay waxa ka filo laakiin ha u qabanin waxa leenahay dadka macnaha oo hadda isku gelinaya qoorta labadan gabdhood isku gelinaya macnaha isku ifinaya waxa leenahay ka joojiya marka muuqaalkeena ku sii socono ya marka aad iyo aad ugu xumahay ina asxaab
kamid ah asxaabteeda aniga saas maxaa lahaye ii dhahan maxaa yeelay amiir weligeed aniga ila noolaa jirtay weligeedana gurigaan ku noole amiir walaasheeda ahay maanta ma u buuxin kari asiim booski aabihiisa ma u buuxin kari laakiin booskii leega baahnaa hawaryarnimo waxaa hubaa inaa kasoo baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدين سلام دمان أصحاب تميل البودون كأجوكتي سو دوادا وولاشين أدنى channel كان يقداوني سينو intaas waa horta intii hore waxaa iska intro waaye meelaha ugu muhiimsan laga soo qaatay just anaga marka hadda muuqaalkeena guud galeena qofkaan qof kasta uu yaqaana walaasheen adna bal muuqaalka aan ku sii socono bal inta muhiimka ah inta muhiimka markii la gaaro soo laabanay bal muuqaalkan soo wada fiirsano marka mowduuca videogan intan wuxuu ku saabsan yahay video wuxuu daba socdaa xalay ee Amiira soo duubtay oo siyaabo kala duwan dadka ay ugu soo falceliyeen ayo videogan daba socdaa marka hore u soo dhawaada waxaan rabaa inaa waxyaalo qaarkood inaa insha Allah aan ka hadlo dhamaantiin horta waa ku maasantihiin fikirkiina saliimka ah qofka bani'aadamka waxa waaye fikirkiisa wuu dhiiban karaa xaqan u leedahay ina fikirkiina aad ka hadashin laakiin ani waxa idin sheegaa videoga xalay Amiira ay soo duubtay maadaama ay ooysay oo iyadana aysan tahay qof cabuuran oo waxyaalo badan oo go'anayso waxyaalo badan lagu sameeyay maadaama ay tahay ay go'anayso eedan rabin inay ka hadasho waxyaalaha qaarkiis sida daraadeed inaga waxa u fahanteen adna u fahanteen inuu video ku socdo Amiira waxa soo kori aniga ayaa soo kori Amiira ana kasoo dhaxay xaar kasoo dhaxay inta ay habarteeda la nooshahay waxa ka badan inta ay aniga ila nooshahay ayaa ka badan habarteeda inta ay taqaana Amiira waxa ka badan inta ani aqaano ayaa ka badan waxaana ahay qof oo Amiira ana hadda waxa u joogaa booski hooyadeeda lamaad u joogaa because waxaa ahay min yaraanteed ilaa iyo hadda qofta kaliya ee la noosha macnaha yaraanteed inta waalidka la nooyaa iska wixii dambeeyo macal yaraanba ka dhig qofka soo koriya ahay maxay naqi kartaa marka Amiiro ani soo kori asima ani ila naqanayo waxa oo macnaha adeeg ila naqanayo because maroodi bu faantiisa lama culsa ma faantiin aniga waxa ahay hooyadeeda lamaad iniga maadaama ay ooysa Amiira ee tahay qof waxyaalo badan go'anaysa qof xumaan loo geystay qof oo la xumeeyay maadaama ta iyadoo umul la xumeeyay waa dareemi kartiin qofka dhibaatada ay leedahay single mother-nimada waa dareemi kartiin maadaama anigana mar walba ahay qofta kaliya ee ku nasanayso wax walba u sheeganayso anigana mar walba ku dhiirigeliyo inay is adkeyso inay noqoto qof adag inay noqoto noloshaneeti qof ka gudbi karto oo maanta noqoto qof meel iska soo saari karto inay noqoto waa qofta kaliya ku dhiiriso waa qofta kaliya Amiira oo maanta maxaa la dhahaye oo mar walba hagto jadwal walba u saxdo ma fahanteen anigana hadda ma aha maadaama oo hadda oo Amiira guri kale ee degtay ma aha ani Amiira inay culeys ila naqatay ma aha inay Amiira laga reebo weligeed meeshaan ku noolaan jirtay okay marka sababta uu ciishoona waxay tahay asxaabe inagoo si qalad waxa u fahanteen oo meel walba anoo raali aan ka ahayn sabirkeyga soo saartay dhehaysiin adna waa qof xun adnana waxyaalaha si sameysay no aniga waxa dhibka Amiira haasto aniga ma aha fahma Soomaaliyeed dhibka Amiira haasto waxa ay ka cabanaysaa waa maxaa lahaa ninkeeda mush ma aha adna ma idin dhihin adna waxaas igu sameysay adna saas iyeesh ma idin dhihin Amiira waxa xumeeyay waa husbandkii hore qabay ma fahantiin ninkii qabay xumeeyay Amiira aniga ma aha ya marka aad iyo aad ugu xumahay ina asxaab kamid ah asxaabteeda aniga saas maxaa lahaye ii dhahan maxaa yeelay Amiir weligeed aniga ila noolaa jirtay weligeedana gurigaan ku nooleed umusha ahayn ani sidoo kale umul ayaa ahay waay wax kale ma weyna ili asiim iyo muhiimadda horta muuqaalka aan ugu golan leenahay waxaa waaye muuqaalka kaasa kusoo gabagabeynayna laakiin qof walba waaye arag ah qof walba macna aqliga ku saliimka ah oo dareemi kara Soomaalian hore uma mahad waxay dhaad ilkii caro isku dhow isgaaraan ilki
iyo carab ayaa isku dhow way isgaaraan waan arki jirnay saaxiibo soo wada ceeshay saaxiibo soo wada shaqeeyey saaxiibo micnaha nolosha soo wada qaybsaday haddana si tartiiba u kala tagay haddana waa gabdho walaalo ah si hadda hore ugu soo sheegtay muuqaalka usoo wada daawateen intay aniga igala nooleed iyo intay hooyadood na nooleed mis familkeeda nooleed anaa ka badan aniga inta ila nooleed micnaha anaaba nolosheedaba kalabar oo kalabar aniga ila nooleed marka qofka bini'aadinka wuu doonaysan karaa meel kale u degi karaa qofka bini'aadinka maxaa qofka hore wala joogi karaa marka Soomaaliya ka dhalanay bonboniska waa noo yaqaanaa qofka wanaagsan inaa xumeyn waa noo yaqaanaa qofkii xumaa inaa korgeeno waa noo yaqaanaa marka walaashayna waxa leenahay adno dadka ku yaqaano dadkan ku aqoonin waa dadka hadda barnaamijyadan bonboninaayo sameynaayo maxay oo dhahayo adna saan waaye adna qof xun waaye adna maxay oo gabadhii guriga ka burisay adna waxa waaye duruuftii gabadhii macnaa iyadoo xaalad xun ku jirto gabadhii guriga ka ciirisay waxaan leenahay Soomaaliya wax walbaba alla og xaalad walba alla ka warhayo adiga waxa ka ogtaan waxaan wax social media ku aragtay dadkan anaga social media ku baranay social media ku aragnay wiligeena ma arkin aago hal meel ku wada in anaga kor tagnay ma arkin marka waxyaaba social media ka socda hadaa adiga ku fududaato dhahda maxay ahayd saanay wax u jiraan saan wax u jiraan hadaa dhahdo ruuxantii adaa ku lagu aayo ruuxantii adaana maxay ahayd dambi iyo waxa waay iyo waxyaabo xun meesha ka heli doono intaas dhays fuyuskaaga iyo waxyaabaha ka raaso ayaa waxa laga yaabaa inaan gud ku dhacday qof kale bil aadinka ahna wajigiisa halba laga akhrisan karaa qofka wanaagsan qofka xun qofka dhagarta ku soo wado qofka si kasta aaba wajigiisa ka dareemi kartaa marka muuqaalkiina ku dheeraanayno walaashayna adna iyo walaashayna raxmo waxaan leenahay dad hore saaxiibo ahaydeen weli saaxiibada tihiin weli waxaa waaye dad soo wada ceeshaa tihiin waxaan leenahay barnaamijkan dadka muubunaya waa dad idinka noloshiina ka xun waxaan leenahay dee cadowgaaga he cagta hoostiisa aan leenahay muuqaalkiina koobnaalkaas kusoo gabagabeynayna gabadhan ha laga leexdo gabadhaas kale nolosheeda ilaaha u barakeeyo gabadhan sidoo kale nolosheeda ilaaha u barakeeyo wax walban waa la wada arkay muuqaalka soo wada fiirsateen inta muhiimka noo soo wada aragna inta kalena waa in waxa iska hadal ah marka waxaan leenahay Soomaali Maxamed wax walba aad maqashaan wax walba aad aragtaan haddaan qofka hadan la joogin waxaan ka codsanaynaa inaan ka hadlin ka naqato samع wadaaca dhageyso ka tag haddii waxa ka heesidna dadkaasna macnaha asleedo macnaha maanta la ka saayo waxba macnaha qofkan insaan uu yahay camalada leedahayna uu ku heeso walaalka aybiis banaanka soo dhigin laga yaabo bari ka maalin ayaaba in banaanka soo dhigo muuqaalkiina ku sii dheeraanin sida caadama like tawaadsi subscribe kuma dhiirigelin wixii afkaarna xaq oo soo reebo sidoo kale waxa aad ugu mahadcelinaa asxaabta maalmahan igu soo siyaadayso igu soo kordhayso sidoo kale muuqaalada ii soo dirayso waxay sameeyaan muuqaalkan diyaalo ka soo hadal muuqaalka ayaan ka soo hadal ayaan waxa leenahay ku ii ka jir aad u mahadsantiin mar walba garabkayga tihiin alla ka soo mar walba garabkayga tihiin waxa idin leenahay ku ii ka jir aad u mahadsantiin waxa waaye macnaha ma celinkaas ku soo koobi kari أنا ما أعرف مين هالعلي معناها وحاوي أنا دنتي ذا هاي وحلينا مقال عين كانوا خلينا تدق وكل من دونه سلاسية أمانة الله.